xilli baa ka dhex galay saaka u dambeysay waxa la kulanteen idinkoo xildhibaanadii gobolka soo baxaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo ka soo noqday safarkii iyo hawshii uu ka soo qabanayay gobolada bari dhibaatadii dhinaca abaaraha ka taagnay kharashaadna uu qaaday oo biyo lagu qaybiyo marka la kulanteen saaka gobolkan aad dhibaatada baan ka sheegtay maxaa kala kulanteen madaxweyne ku-xigeenka bismillaah aad baad mahadsan tahay waxa weeye anaga lafteedu xalayto waxaan markii iyagu xagga ka soo galeen anaguna xagga Hargeysa ka soo galay saaka ayaanu guddiday abaaraha iyo anagoo wada soconaa la kulanay waftigii guddida abaaraha heer qaran ee ka yimid gobolada bari waftiga gobolada bari ee halka aanu isugu nimi wax qaala haba yaraatee oo gobolka ka soo gaaray ma jiraan waxaan maleynayaa anagu su'aalahan sii weydiinay marka hore waan ka sii afur waxaan ku war dekada berbera waxay la mid tahay iminka markii hore dekada berbera waxay ahayd dekad berbera leedahay iminkana waxay la mid tahay shirkadda dahabshiil marka wixii shirkadda dahabshiil ay wadanka u qabanaysaa oo bay kala mid noqonaysaa ma aha warshad meel aynu inagu leenahay oo reer gobolkii saaxil gaar u leeyahay shirkadda Omar iyo shirkadda dahabshiil iyo shirkadda DB Wall waa saddex shirkadood oo siman oo wadanka ka wada ganacsada waxa la leeyahay wax gaar ah oo ay berberi ku leedahay dekada ku leedahay oo aan ahayn shaqaalaha xamaalka ee ka shaqeeya ma jirto marka waxa weeye wax loogu in lagu wax lagu goosto la yiraaho in berberi wax saaxil waxay ku taala berbera ku dekadii ba ku taala oo dekada aawadeed ay ku qadaa waa horta dhibaato aad u weyn oo dadku inay ogaadaan ay u baahan tahay dawladuna waliba inay iyadu sii ogaato oo leeyadaaba gacantii ku haysa DB Wallna baashi ku wareegsay meeshiina gacanta ku haysa miisaaniyada ka soo baxda wadankana waxay soo martay halkaas waa cashuurta la qaado cashuurta la qaadana de waxba kaga soo baydaan berbera waxba kaga soo baydaan DB Wallna waxeeda de iyada gaar u leh waxa la leeyahay wax marka dekada berbera loogu haleyn karaana meeshii kama muuqdaan ma yaalan marka waxaan leenahay taasuna waa dhibaato ka taagan tahay dawladdiina waxa la leeyahay wax ilaa hadda berbera ay ka haysaa madaxweyne ku-xigeenka iyo guddidu markii aanu halkii u dambeysay aanu ku wada hadalay waxay nagu yiraahdeen waxa dambe la qaybin doona gobolada galbeed ee la qaybin doono de anigu markii imberga dhaweyto de intii mala miisaaniyada ugu jirtayna waaba la soo saaray intii bergi dhaweeda laynagu arkaa meel dambe oo loogu noqdo de ilaahay tiisa mooyaane oo aan dub loogu dhigayo oo dub loogu sii dhigayo leeyahay dambe ka qayb galaysa anu garan maayo meesha dambe loogu dhigayo laakiin af Soomaaligii u dambeeyay uu yiri madaxweyne ku ahaa gobolada galbeed ayaa la mid tiino gobolada galbeed oo baa wax la ayaa la xal qaadanaysa sidaas aanay berberi la hadda aanay gobol ahaan waxa la leeyahay wax ka soo gaaray caawimada abaaraha ee heer qaran aanay jirin haba yaraatee la bixinayay baras wasiir madaxweynuhu waxa uu nagu yiri ciyaari gaabo shilin kala ma soo bixin oo farmara ma berbereedii ku yimid dadna taasoo diisi dhaafaya warkii u dambeysay nagu yiri saas ahayd wax kale oo halka nooga soo muuqdayna ma jiraan bal waxa aynu de waqti dambe iyo meesha wax laga doonayo de marka la baadi doono waxaan maqlaayay de qoliyo ka qaylinayo laha magaalooyinka magaalo Heblayo la dhaafo aan waxba la siinine anna waxaan sheegaynaa in gobolkii dhama koonaha inta laga soo baxay inta ka soo laga soo galay koonaha kale laga baxayo iyadoo waxba loo dhiibin oo cidna magaalada berbere habeenka loo hoyday mooyaan meel break lagu qabtay aan jirin sidii halka looga soo galayna xagga loogu dhaafay waxa la leeyahay wax ka soo gaaray dadkaana aan jirin haba yaraatay waxa leedahay marka xildhibaan berberi waxay qaadaankii dhaqaalaha abaaraha ay ku weeday dekada ku taala berbera waa sida uu eeg tahay loo dhigaya waxa weeye dekada berbera ku taala waxaan maleynayaa berga hore waxa loo jiray hebel badda ka cabe waxaan maleynayaa in la leeyahay dadkii reer berbera dadkii reer saaxil leeyahay badda ka cabe waxa la leeyahay wax loo hayaa aanay jirin haba yaraatay